xafladu si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhici doonta hoteelkan Ritson Sharjah xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed iyo jaaliyada reer Puntland daawasho wanaagsan daawadayaal waxaan jecelahay ugu horreyn inaan horta ku soo dhaweeyo oo aan ku furno barnaamijkeena aayado quraana oo halkan nooga soo jeediyo Abu Ali bismillahir rahmanir rahim ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون waxay ugu horreyn baa hadalka aan ku bilaabaynaa mudanayaal iyo marwooyin soo dhawaada marka koowaad kadib dhammaan waxaa marti sharafta guud ahaan ka soo qayb gashay xafladan ballaaran looga mahad celinayaa waqtigooda qaaliga ay noo soo horeenay inay yimaadaan nagala soo qayb galaan xafladan marka labaad waxaan dhammaan u mahad celinaynaa inaan la qaybsano farxadda caawa xafladda tan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabweynaha reer Puntland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba taasoo ay ka soo miguurinay farxaddaas oo aan la wadaagino shacabka dhammaan Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba sidii ay u dhacday doorashadii taariikhiga ahayd ee dhacday bishii January bisha aynu ku jirno January 8-deedii taasoo ay isku bedeleen xukuumaddii hore ee Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole iyo xukuumadda Cabdiraxmaan inaan ugu horreyn ku soo dhaweeyo qunsulka safaaradda Soomaaliya u fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta qunsul Umar Abdulaziz fadlan tafadhal madaxweyne Dr. Abdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Mr. Abdulhakim Abdullahi Umar Xamay waxaan idin leeyahay hambalyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ilaahay waxaan idinkaga rajaynayaa inuu idinku garab galo oo uu idin tuso tubta toosan xaqa iyo waxqabad dhab ah madaxweyne Professor Abdiwali isbeddelku ha noqdo mid dhaqaale tacliin amni horumarin iyo adeega bulshada madaxweyne hamoodin inay guushu tahay inaad aqalka madaxtooyada gashid ogow hawsha lagu xil saaray ee ummadda Puntland ku dooratay intaa ka ballaaran waqti ha ku lumin in aad dadkoo dhan aad raali gelisid ama aad qancisid bari baa nin wuxuu yiri waxaa lagu yiri waad guulaysatay oo guul baad gaartay markaas buu yiri anigu guul ma aqaan laakiin waxaan idiin sheegi karaa guul daro waxay tahay markaas aad yiri guul daro maxay tahay guul daro waxay tahay buu yiri ninkii madaxa oo isku daya inuu dadkoo dhan qanciyo taasi waa guul daro marka waxaan oran lahaa Abdiwali taas marna ku suurtoobi mayso hana isku day haatan waxaan ku xigsiinayaa inuu noo yimaado the former ambassador ama ambassadorkii hore ee Soomaaliya ambassador Cabdiraxmaan Umar Usmaan munaasabada qusulku way noo taabtay waxaana weeye sagootigii madaxweynihii hore ee Puntland iyo soo dhaweynta maamulka cusub waan ku raacnay taas waxaan leenahay kii horena nabad Allah ku salaameeyo si fiican ugu yeelay
kuwa dambana khayr allah waafajiyo waana ugu hambalyeynayna xaaladan hadda ka dhacday doorashadan Puntland hadda ka dhacday dhalinyaradu inta koruun bay ka fahmayaan laakiin odayaashu waa inay taariikhda wax uga taabtaan maxay tahay horta Puntland sideedaba Puntland waxa weeye magacii qadiimka ahaa ee Soomaalidu lahayd way taqriiban waqti laga joogo 3700 sano Habrashuud markay timid Soomaaliya waxay timid dhul la yiraahdo Puntland ama Bilaadul Bont af Carabiga lagu qoro waxaana soo dhaweeyay markaa ninkii Soomaalida madaxdu ahaa magaciisa la oran jiray Baraxow taa macnaheedu waxa weeye Puntland waa meeshay Soomaalidu ka bilaabatay way ee saldhig u ahayd dalka Masar ninkii tagay xabaasha Fircoon waxa ku qoran inuu isagu leeyahay aniga ilaahaygu ilangaal buu ahaa iyo awowyadayba geeska Afrika meelaha geedaha beeyada ama uduga laga soo saaro yay jiraan waa halka la yiraahdo Soomaalida iyo nimanka la yiraahdo Noobiyiintu waa isku asal Fircoon baa sidaa leh taariikhdeena cusub ee Soomaaliya haddii aynu hadda dib u eegno dhammaan taariikhda Soomaalidu intan hadda Puntland la yiraahdo ku wareegaysaa haddii laga soo bilaabo hadda waxa yaala dalkan aynu walaalahan joogno madaxtooyadiisa 370 sano ka hor risaaladii ka soo baxday geeska Afrika amiirkii joogay markaa ee uu soo diray amiirkii shaariqa Soomaalinimadaba salka u dhigtay maxaa yeelay markii hore dagaalkii Axmed Gurey iyo halgankiisu islaamnimo kaliya waa Soomaalinimo ma ahayn laakiin Soomaalinimada waxaa saxay oo isku duway Said Maxamed buu ahaa iyo daraawiishtiisii xaruntooduna nugaal bay ahayd oo waad garanaysaan Taleex iyo Garowe iyo Ayl iyo intaas isku fadhigaas ay ahayd xaruntu haddaynu taariikhda dib u qaadno Dr. Cabdiweli ama ilaahu Professor Dr. Cabdiweli xafladii tan ku xigteen ku qabanay dalkan waxaynu tamaniyayni inuu hawsha uu isu taagay ilaahay ku guuleeyo dad islaam baynu nahay isaga iyo inaga ducadii ilaahay waa inaga ajibay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waana ku guuleystay xafladani xaflad siyaasadeed ma aha waa xaflad dabaaldeg oo sidii la sheegay loogu dabaaldegayo maamulkii talada soo hayay in la wadaco maamulka yimina la soo dhaweeyo isbedelkii ay reer Puntland naawilayeen inuu yimaado ee ay in badan ku fakarayeen ilaahay waa ka ajiibay oo isbedelkii waa yimid allahumma laka alhamdu wa laka alshukr isbedelku Cabdiweli kaliya maaha Cabdiweli waxaa sharciyan ka horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka oo aanu hambalyeynayno Dr. Professor Cabdiweli oo madaxweynihii Puntland loo doortay waxaa ku xigay injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay oo baabul ku magac dheer oo loo doortay madaxweyne ku xigeenka saddexdaba waynu soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynayna dhamaantood waxaan hambalyo kale halkan u marinayaa maamulkii Dr. Cabdiraxmaan soo waday la'aantii aanay suurto gasheen in platformkii la helo doorasho ku dhici lahayd isla markaana si qalbi wanaagsan oo mas'uuliyadi ku jirto ku tartamay markii lagaga helayna xilka ku wareejiyay iyagana hambalyaanu leen waxaan kaloo hambalyeynayaa guddidii doorashada qabaqaabada doorashada iyo khilaafaadka ee dad badani carabka ku mudayay ee haddana noqday haleeyada Puntland ee muujiyay mas'uuliyadooda iyo karaamadooda iyo xilkii ay qaadeen sida ay u guteen waxaan kaloo hambalyo u diraynaa xubnihii baarlamaanka ee dareenka dadkooda ka turjumay ee dhinacii dadkoodu daneynayay ee isbedelka ahaa codka u badiyay
iyaguna gartay inay dadkooda baahidooda ka turjumaan madaxweynaha iyo tiimkiisa waxa imika dhisan iyo kuwa soo socdaba ilama aha aniga iyo nin qof ila mido halka jooga inuu u sheegayo waajibaadka hor yaalla waynu wada garaynaa isagaana inooga aqoon badan oo cagihiisa ku doontay oo yidhi anaa xilkeeda qaadayo oo waajibaadka anaa saxaya waxaanu isleenahay ilaahay kuguma kashifo biidni illaahi tacaala adiga iyo tiimkaaguba ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaad ku guulaysataanoo niyaddii iyo awaalkii dadku iyo rajadii ay qabeen inaad kaga dhabaysaan hadday Puntland tahay iyo hadday Soomaaliya oo dhanba tahay dawlad ummad dhaqaalaheeda horumarisay ma jirto tijaar dal hore u mariyay ma jiro laakiin jointka ay sameeyaan maamulka iyo dawladda jirta iyo hantiilayaashu oo private public sector partnership ayaa ummaddu ku horumartaa haddii maanta la yidhaaho masnaca sibirka tijaarta Dubai joogtaa la siiyay 2 nin oo ka mid ah boqolkii 50 dawladda Puntland baa leh yaanu masnaca sibirku dhismay haddii la yidhaaho lo'dii waa la beerayaa geel dooxooyinka ugu wacan baynu leenahay dhulkeenu waa buuro iyo dooxo lo'dii waa la beerayaa warshadii caanahana waa la samaynayaa miyaynaan qaban karin dawladda iyo tijaartu inay sheergareeyaan tijaartan wada Zambia iyo sii ordaysa dhul aynaan garanay hadday dalkooda dhisaan wiilasha baddu ma liqdeen baxriyiin ummadda badda u fadhiista dariiqeedana may noqdeen jiri qaad ku waalana may noqdeen cabdiwali waxaanu ka rabnaa jaadka soo gelaya Puntland boqolkiiba 500 cashuurta saa jaadka soo gelaya Puntland boqolkiiba 500 baaqayga waan ku celcelinayaa 500 saa cuntada daruuriga iyo dawada soo gelaysana boqolkiiba 300 jebi cashuurta ka jebi saasa ummada ku noolaanaysa dadkana ha loo furo waxaan la yidhaaho public private sector partnership kaas oo tijaarteeni iyo dadkeeni waxaystay iyo dawladdiyo midooba oo wax wada qabsada keligii wax ma qaban kartaan tijaartu dawladuna keligeed wax ma qaban karto anayno wax shakiga ma jiro cabdiwali inuu taa sameeyo wax shakiga ma jiro that's why anigu aan u support gareynayo horena ugu support gareynayo waan ku aaminsanahay inuu fikradda qabo waxaan ku soo khatimayaa USB من هذاك قارب بانقرين أو يونايتد سومالي بارتي لولج هذا وحال إلها ماخر يا خاتم وحان وش يا ذاك هالكفرلي أنا هالكاس كسو تشيدا أجدادي دتكاس يتشيل كأنه كسو تشيدا ومدة الصومالية دتك وطارق هنا أو واحد بدنا أو جيسي سنة أو مقعر هنا بهاي ما أنتنا waxaanu taaganahay haddaanu maakhir iyo khaatubanahay waabana lagu murmaa war ilaahay intaynu ka yaabno oo aynu isku xishoono aynu danteenna iyo dadkeenna u kacno inaynu sharafkeenna iyo karaamadeenna ilaashano waxaan rajaynayaa oo aan aad ilaahay uga baryaya idinkoo aan cidna dulmiyeyn bini aadan iyo naf iyo maal midna wax ilaahay idinka xarimay aan ku kacayn inaad sharafkiina maakhir iyo khaatumoy sharafkiina iyo karaamadiina intaa garataan inaynaan ajdaadi inagaga tagtay qabriga fariin loogu geyn waa la isku haystaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda waxaan jecel lahaa insha allah inaan u yeedho cabdiraxmaan cabdulla shuuke ugu horreyntii waxaan u mahadnaqayaa guddigii soo qabanqaabiyey xafladdan sida wanaagsan loo soo abaabulay oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Puntland luna sugootayahayo madaxweynihii hore ee Puntland sanadkii 16 bay gashay cimrigeedu intaasna muddadaas dheerna waxaa la filayay maanta meeshay joogto mid ka fiican inay joogto anagu muddo dheer baan ka shaqaynayay Puntland hay'ad baan madax u ahay ka shaqaysa Puntland
aada iyo aada baan ula socdaa dhibaatooyinka jira iyo hadba sidii loo xalliyi jiray. waxaanu u bixinay hay-ad ahaan qalfoof lagama maarmaan ah, yacni haykel aan xoog lahayn, dhaqaalo badan haysan, laakiin asaasiyaadkii dowladnimadu ka muuqato, taasoo ah barlambaaj baa jira, xukuumad baa jirta, waxaa jira garsoor baa jira, ciidan amni baa jira. markii la isku daro hay-adihii ama mu'asasaadkii dastuuriga ahaa ee dowladda ayaa ka muuqda. tabartu wax kasta ha ahaato, aqoontu wax kasta ha ahaato, ama ha sarreyso ama ha hooseyso, laakiin 15 sano oo ay jirtay waxaa ka muuqatay dowladnimo mu'asasaadkeedii loo baahnaa ayaa ka muuqday. waxaan jeclaan lahaa halkan inaan runtii mahadnaq uga jeediyo guddiga qabanqaabada xafladdan isku soo agaasimay oo magacyadoodu halkan ku liisgareysan yihiin. dabcan waa ay fara badan yihiin, laakiin hadda intii aan qoraal ahaan la igu soo gudbiyey oo ugu horeeyo Siciid Cawagoor, Shaybe Sheekh Maxamuud, Axmed Sandeyl, Cabdiqaadir Kamaaludiin, Axmed Sandheere, Ibraahim Cabdikariim, Ciise Xaaji Faarax iyo rag kaloo badan waa lagu soo koobiyey intaas. sidoo kale waxaa halkan laga xusay oo aad iyo aad looga mahad celinayaa fanaaniinta iyo kooxda hidiya dhaqanka oo aan filayo inay soo bandhigi doonaan ciyaaro hidiya dhaqan oo kala duwan. hadda anigu waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero sida uu qorshuhu ahaa kabtan Ciise Xaaji Faarax ahna kana mid ah maarta guddiga qabanqaabada. marka horeysa waxaan u mahad celinayaa dadkan sharafta badan ee soo ajiibay ka qaybgalka xafladdan quruxda badan ee lagu taageerayo maamulka cusub ee laga doortay Puntland bishan ku jira 8deedii loona doortay madaxweynaha cusub Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo ra'iisul baarlamaanka cusub Saciid Xasan Shire. laguna sagootiyey maamulkii horeete uu madaxda ka ahaa Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole iyo ku-xigeenkii Generaal Cabdisamad Cali Shire. waxaan filayaa haddaynu wada xusuusanahay 5 sano ka hor hoolkan aan joogno waxaynu ku soo dhaweynay madaxweynihii horeeto Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo wafdigii uu hogaaminayay oo halkan aanu filayo dadka dhan inay xusuusan yihiin keegu inuu ku jarayay laguna soo dhaweynayay dowladda cusub ee waqtiga la doortay. caawi waan sagootiina waxaan soo dhaweynaynaa dowladda cusub. waxaan filayaa Professor Cabdiweli iyo dadku way wada yaqaaneen, waa nin soo qabtay xilal fara badan, professor jaamacadeed ahaa, prime ministerkii Soomaaliya noqday, wasiir ahaa. waxyaabaha lagu xusuusto oo taariikhda runtii maanta Soomaali magac weyn u ah waxaa ka mid ah hawshii uu ka qabtay road mapkii aynu ku gaarnay dowladdeenu maanta haysano oo ah dowladdii ugu horeysay ee la ixtiraafo dowlad Soomaaliyeed oo ku meel gaar ahayn. waxaan filayaa runtii sharaf bay u tahay Puntland inay u doortaan madaxweyne inuu noqdo. waxaan rajaynaynaa inuu diyaariyo road map Puntland ay ku gaarto one man one vote systemkii socday oo dowladdii ka horeysay samaysana
oo wixii jiray oo qaldamayna la soxo systemkii xisbiyadana la soo celiyo kaasna uu sii gudbiyo Soomaali weyn taasna waxaan filayaa Cabdiweli inuu awoodeeda iyo aqoonteeda leeyahay waxaan filayaa meeshaan umaynaa niman hadal badan inaan ka jeedino waa xaflad taageero ah ku soo dhaweynayno Professor Cabdiweli iyo dawladdiisa waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu fududeeyo xilka loo dhiibay Soomaali haddaynu nahay waxa jira waxyaabo badan oo qalad ah oo caado noqday Cabdiweli waxaan rabnaa waxyaabahaas in wax ka qabto waxa la yiraahdaa marka laga soo bilaabo carta ilaa ay maanta inuu joogno wax kastoo la qabanayo xaq lama raadiyo xal baa la raadiyaa Cabdiweli waxaan rabnaa inuu xaq raadiyo xal aan xaq lahayn ma shaqeynayo inaan u yeero marwacaasho ashkir falasle salaam baan idin soo gudbinayaa kaliya laab ah waa idinka hoolka fadhiya inta ina ka maqanna waxaan ugu darayaa dabaysha caafimaadka insha Allah waxaynu halkaan isugu nimi inaynu mataqaanaa hambalyeeyno foodkii inoo dhacay oo ka dhacay meesha la yiraahdo Garoowe ilaahay waxaynu ka baryeynaa kii hoodo iyo ammaan bale Allah nooga dhigo qadar ku soo booqday rabbigay ha kugu basharo qadar ku soo booqday rabbigay ha kugu basharo burudkaaga iyo nasiibkaagu noqoy badaas burudkaaga iyo nasiibkaagu noqoy badaas burudkaaga iyo nasiibkaagu noqoy badaas ilaa xijaab iyo burdaan baalka kugu xiray sidii cirmareenka magacaagu calan walle sidii cirmareenka magacaagu calan walle cadow ku soo doortay cid la kama yeela cadow ku soo doontay cid la kama ay helaan cadow ku soo doontay cid la kama ay helaan xasiis baan ku baryaaye caafimaadka sidoo habeen iyo maalinkeeba indhuhu hogtaan habeen iyo maalinkeeba indhuhu hogtaan hordiyo soo jeed midkeeba hanaan wacnaa niman halaqoonin iyo ku cilmigu harsado haybta guudnimo miyaa lays hareer dhigaa halkaad ku hagaagsanahayd waadiga hantiyey halkaad ku hagaagsanahayd waadiga hantiyey habeenba habeen hadduu waya kula igsado habeenba habeen hadduu waya kula igsado haddaadan ku hagaagin marinkaaga kugu habboon cabdow absan inaad tahay cabdiyow taasu waa hubaa
intii nuxurkiisii waa la yiri laakiin marka ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa dadkii xafladdan agaasimay oo aan isleeyahay waxay kulmiyeen taageerayaal fara badan oo maalmihii ugu dambeeyay camps kala duwan ku kala jiray oo aan caawa arkayo taana waxay nusaysaa midnimada reer Puntland iyo dadka reer Puntland qaangaarnimadooda iyo aragtida siyaasadeed marka xilligan oo kale loo baahan yahay in la mideeyo caawa hoolkan oo kale aynu isugu imaano anigu waxaan doonayaa on laba arrin aan sheego marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa oo aan caawa oo dhan sugayay waxa aad loogu celceliyay mahad celinta siyaasiyiinta laakiin labada dad aan ahayn oo Puntland la'aantood aan isleeyahay ama asalba oo nabadda aynu haysano ayaa jiray aan rajaynayay in loo mahad celiyo waa ismada Puntland iyo culimada Puntland oo aan isleeyahay marxalad walba oo adag marka ay timaado waa rag aan isleeyahay Puntland waa badbaadin karaan inta kadib anigu muddadii aan hadda dalka joogay waxaan isleeyahay khibrad fiican oo ay aragnimo ayaad ka heshay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole waxaan ku amaanayaa ama uu ku faanan yahay inuu dhisay system shaqaynaya oo maanta aan isleeyahay Puntland madaxweynaha hadda yimid uu arki doono sida ay u shaqeeyaan waxa uu kale oo dhiso muhiim ah wasaarado tayeysan oo shaqaalahooda effective yihiin waxaan kaloo ku amaanaynaa oo runtii caawa aan isleeyahay Puntland unitygeedii wuxuu muuqday kolkii calanka la sameeyay iyo abwaan cali xasan markuu yiri heeskii Puntland ku tayo iyadana isagaan isleeyahay libteeda uu leeyahay waxaan isleeyahay marka madaxweynaha cusub mas'uuliyad baa saaran
waa la isla xisaabtamayaa xisaabtankuna waa waxaan u baahannahay puntland u baahan tahay dabcan qof walba oo mas-uul ah adduunka horumar gaara wuxuu horumar ku gaaraa dadka agtiisa taagan kubadda waad garanaysaan marka la cayaaraya shaxda tababaraha kooxda waxa uu ku soo galaa ragga uu isleeyahay waad ku kalsoon tahay ciyaarta waxbay ka keeni karaan anigu waxaan ka rajaynayaa marka dr cabdiweli gaas raggii murashaxiinta ahaa ee la tartamay waxay ahaayeen labeentii puntland waxaan ka rajaynayaa raggaa inuu noqdaan garbihiisa marka taa laga yimaado cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin puntland waxay leedahay dad aqoon-yahana oo dalka jooga oo u baahan in fursad la siiyo ma aha qurba joogta maalin walba boorsooyinka la taga dalka puntland waxay leedahay waxaan idinku bishaaraynayaa waadna arki doontaan haddii ilaahay subxaana watacaala aynu naftaynoo daayo 10 sano soo socda jaamacadaha puntland dadkan ku soo arkay talentska ee haween iyo ragba leh in fursad la siiyo ugu dambeyn xaflado badan uma baahnin waxaan u baahanahay wax qabad qurba joogta waxay aad ugu fiican yihiin kuna faanan yihiin xafladaha laakiin weli ma arag jaaliyad hebel ama maraykan ha ahaado ama north america ha ahaado jaaliyad hebel baa iskuulkaa dhisay marka laga yimaado qabaa'ilku waxbay dhistaan dabcan qabaa'ilka taa libteeda qabaa'ilka iskale laakiin ka jaaliyad ahaan caawa halka waxaa fadhiya raggii noogu jeebka weynaa ma magacaabayo way sog yihiin waxaan idinka rajaynayaa iskuulaadka caafimaadka dhammaan asaaska arrimaha bulshada inaad ka qayb qaadataan aanu yeero dhuux nuur jaamac waxaa loo yimi waa xaflad lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas marka koowaad cabdiweli waa wax maliyaynaynaa marka labaadna waxaan leenahay soo dhawow marka saddexaadna waxaan leeyahay reer puntland waxay yaqaanaan ama soomaaliya marka ay ahdo dabeecado xun dabeecadahaas waxaa ka mid ah madaxweyney doortaan markuu shaqada bilaabana way xagxagtaan oo waxay ku dhaqaaqaan siday wax uga sheegi lahaayeen iyo siday u dhibaateyn lahaayeen markuu kursiga uga degana way daba horana waxay yidhahdaan kii horaa fiicnaa kii horaa fiicnaa kii horaa fiicnaa meelna kuma xasilaan waxaan kaa rajaynaynaa inaad dulqaadato waxaan kala u hambalyaynayaa madaxweynihii hore cabdiraxmaan maxamed faroole sidii habsamida ahayd ee uu ugu wareejiyey xilka ama u qabtay doorashada sidii quruxda badneed ee ka muuqanaysay hawlkii adduunka o dhan laga daawanayay xamaliyadii tirada badneed oo loo soo diraayay madaxweynaha hadda la doortay oo aan u malaynayo sababaha qudan badan ay leeyihiin quruxdii ka muuqanaysay garowe iyo sidii sharafta lahayd ee loo doortay waxaan kaloo u hambalyaynayaa ismada puntland oo ah xukuumadda nabadda waxaan kaloo u hambalyaynayaa taliyaha ciidamada daraawiishta jenaraal siciid deere waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa cibaadasan caqli suuban caafimaadsan waayo waxaa tahay xukuumadda nabadda puntland waxaa tahay ninka keliya oo ugu kalsoon yahay aan qabiil lagu tilmaamin adeer waxaan ku leenahay jiroo joog intaa markaan ka imaado waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaha soomaaliyeed mudan madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas inuu isagoo laga habeen madaxweyne aha ku dhawaaqay inuu gabdhaha siin doono xuquuqdooda 100%. taasoo aan marinaya habeenkii isku dambeysay balantaydu ahayd cabdiweli haddii gabdhuhu kusoo dhaweeyaan waa kusoo dhaweynin haddii kalese waxaan ku samaynayno kuu sheegi mayno dubay waayo bilaababa adayma hadda waxaan raba idiin sheegaya cabdiweli horta soo dhaweyntiisa naga idinka horeynayna baabuurna waa wadanaa dubay dariiqyadana waa wada naqaan horta idinka sugi mayno ano nagana arsan maysaan warqayo wacan yahay waxaan leenahay madaxweyne kii jiro jooga ahow waxaan
waxaan kaloo aan u sheegayaa waxaa jira asxaab iyo xisbiyo la furi doono xisbiyadaas waxay ila tahay rag baa ku tartamaya iyo dumarba annagu haddaan dumarkanahay waxaanu leenahay xisbi gaar ah waayo wax kama helo ragga gabadha waxaa la yidhi waa lagu qabaa reerkii ku qabay aan midna waxaa lagu yidhi reerka ka dhalatay aan dhinac manaada waa garan weyn saacaddaa laga bilaabo horta waxaanu nahay xisbiga cabdiweli waxaanu nahay dumar soomaaliyeed qabiil ma lihin markay asxaabtu bilaabato gabdhow xagee wardaan ku jirtaa waa su-aal sanduuqa cabdiweli annaga xisbiga iyagu magacu leeyahay magaca haddaa idiin sheega waxaa ku qayna carabtaa gabadho markale ra-iisow ummaddii israbtaa waa israadsataa shantii reer ee midoobay puntland rakibay talada isku raacay oo isku reer ahaa haddana kala rooraya ruba ruux aqoon ruucadaagii asaasee rabbiguu la tegay inaad isu raadisaa baan rajaynayaa ra-iiskii lagu natiyo roobna deeqanoqo arkaysaanba halkan waxaa ila jooga qabanqaabayaashii xafladdan sida weyn loo soo agaasimay ee loo dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa halkan waxaa ila jooga axmed sandheere ku soo dhawow telefishinka royal waa mahadsan tahay royal t v aad baanu idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka iyo duubista sidaa u duubteen xafladatan munaasabadatan lagu sagootiyayey dowladdii hore laguna soo dhaweynayo dowladdan cusub ee hadda dhalatay oo doorashada ku curatay sida xalaasha u dhacday ee ka dhacday puntland waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid ummaddeeda dalkeeda iyo dadkeedaba insha allah anfacda waxaannu ka malaysanayno waa wax weyn waxaan rajaynaynaa in hadda ragga la doortay oo la xulay ay wax badan ka beddeli doonaan ragga halkan jooga imaaraadka waxay u badan yihiin dad ganacsato ah waxa ayna xiisaynayaan waa ganacsiga dad kuraas doonaya maaha dad lacag tuugaa doonaya maaha dad hawl kale doonaya maaha waa dad doonaya waddanku inuu xasilo mujtamac badan la helo waddanku amni noqdo ganacsiguna uu socdo intaas ayuun baan ku borin lahaa halkan waxaa ila fadhiya qabanqaabayaashii xafladatan soo qabanqaabiyey oo soo abaabulay iyagoo uu ku guulaystay sida ay rabeen ay ugu dhacday xafladdii daawadayaal saad arkaysaan halkan waxaa ila taagan isna qabanqaabayaasha xafladdan sida weyn loo soo agaasimay maxamed cabdalla barre ku soo dhawow telefishinka royal bismillaahi raxmaani raxiim xafladatan waxaan ugu talagalnay hambalyo aan u bogaadinayno madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa soo dhoweyn aan soo dhoweynayno oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda puntland ee sutaga imaaraadka carabta taasaan ugu talagalnay farxad iyo rayrayn inaannu ku aragno oo uguna hambalyayno dalkan uu cadaalad ku dhaqo annagoo matalayna jaaliyadda sutaga imaaraadka carabta ee puntland marka waxaan leeyahay cabdiweli maxamed cali gaas cabdulaahi cumar camey maaragtay madaxweyne ku-xigeenkiisa hambalyo ayaannu leenahay aad baan ugu faraxsannahay isbeddelka nabadgelyada ee ka dhacay dowlad goboleedka puntland daawadayaal saaad u arkaysaanba halkan waxaa ila taagan qunsulka dalkan istaga imaaraadka carabta khaasatan magaalada dubay cumar cabdilcasiis ku soo dhawow telefishinka royal waa mahadsantihiin waana idinkaga mahadnaqaynaa ka qaybgalkaa ka soo qayb gasheen dabaaldeggan quruxda badan ee loogu hambalyeynahayey
doorashadii ka dhacday Puntland oo lagu doortay Professor Cabdiweli Cali Maxamed Gaas iyo ku-xigeenkiisaba haddii waxay tahay waa guul u soo hoytay Soomaali oo dhan waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inay inta kalena ku dayasho ay lahaato waxa Puntland ay samaysay sidaad u aragtaa doorashadii ka dhacday magaalada Garowe aadka u quruxda badneed adigu qonsul ahaan sidaad u aragtaa adigu waxaan u arkaa inay runtii doorasho aad iyo aad u hufan oo qurux badan shafaafiyad badan lahayd ama transparency fiican lahayd mid lagu guuleystay ummadda Puntland waxay cadeeyeen yani kalsoonida ay ku qabaan baarlamaankooda iyo doorashadii ku timid waxaanu leenahay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hamoodin hawsha inay inta ku eg tahay waxa laga doonayaa Soomaali min taraf adaa lagu eegayaa waanu ku hambalyeynayna dawladdii dhaxana waxay sugaysaa wada shaqayn wacan iyo inay ka mid noqotaanin federalismka hana noqoto Puntland mid ka tirsan dawladda federaalka hana la ogaado inay Puntland ay tahay qayb ka mid ah federaalka dawladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhida daawadayaal imika halkan waxay la taagan Kabtan Ciise ku soo dhawow telefishinka Royal waa mahadsan tahay waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan shacabka Puntland dal iyo dibadda meel ay joogaan waxaan hambalyo kala u dirayaa baarlamaanka Puntland oo si sharaf leh u doortay madaxweyne Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka injineer Cabdixakiin ra'iisul baarlamaanka Saciid Xasan Shire waxaana leeyahay hambalyo waa madaxweynihii shanaad la doorto waxaana rajaynayaa kan ku xiga nabad iyo barwaaqo in lagu gaaro daawadayaal imika halkan waxay la taagan ganacsatada waaweyn nin ka mid ah oo la yiraahdo Sheeba ku soo dhawow telefishinka Royal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كل وحي عاد بنقول فرحسنا هاي مناسبة عاوة صوروينتا مدحوينها صوب دوغد كبنتغان بروفيسور غاس يو كحجين كيسا عبد الله حاج عمر عمي يو قدوميا برلمان كاس سعيد حسن شري تيم كاس تيم عاد وناكسن رجونا كقبو إن كبحي كران حيو كقو إدبضي aad baan u soo dhaweynayaa waxaana rabbi uga baryayaa inay noqdaan kuwii ka baxa xilka oo idbaday rajo fiican ayaana ka qabaa waana soo dhaweynayaa run ahaantii daawadayaal saad u arkaysaan baalkan waxay la taagan Cabdullaahi Maxamed Cali Gurey Cabdullaahi ku soo dhawow telefishinka Royal ahlan wa sahlan waa dhawahay aad iyo aad ayaan ugu tahaniyadaynayaa waxay ahayd doorasho xaqa oo si wanaagsan u dhacday tahaniyad aad iyo aad u ballaaran baan gaarsiinaynaa dowlad goboleedka Puntland uu madaxda ka yahay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul baarlamaanka Saciid Xasan Shire aad iyo aad ayaan u tahaniyadaynaynaa waxaan u rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo baraare inay ku waaraan Saciid Maxamed Ciise oo ka tirsanaa guddigii xafladan aadka u quruxda badan la soo qaban qaabiyay maxamed ku soo dhawow telefishinka Royal waa mahadsantahay aad baa mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka tirsanahay guddigii qabanqaabada xafladda waxaana ku taageeraynaa oo ku soo dhaweynaynaa xafladda madaxweyne isbeddelka cusub madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ra'iisul baarlamaanka Saciid Xasan Shire baan macnaha madaxweynihii hore oo isaguna xilki ka degay oo aan isagana aanu hambalyeynayno sida sharafta badan oo uga degay iyo waxa badan oo soo qabtay oo macnaha waxay maartay uu Puntland ka qabtay qolada tan cusubna waxaan leenahay waxa weeye macnaha isbeddelka cusub oo aan awal anagu dadkii ku taamayay baan ahayn ku dhaliyay Cabdiweli inuu ka noqdo madaxweyne ee Puntland isaga oo aan macnaha aanu fiirinayno wuxuu horey u soo qabtay ama federaalka ka soo qabtay ama macnaha Soomaali waxa weeye macnaha uu ka soo qabtay waxa weeye macnaha aad baanuna ugu faraxsanahay caawa haddii uu Puntland madaxweyne ka yahay annaga oo dadkii ku qalqaaliyay inuu madaxweyne ka noqdo laana Cabdiweli Cali Gaas wuxuu ahaa ninkii Soomaali weyn isu keenay ninka Soomaali weyn isu keenay waxaan u arkaa inaanu Puntland macnaha waxa weeye isu keeni karo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaa qoladii horena waa u mahadcelinaynaa waxa weeye idinka oo dareenkiina farxadna la qaybsanayana aad baan idinku mahadcelinaynaa yaasiin cabdi ciise ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Royal walaal waa ku soo dhawahay waxaan u tahniyadaynayaa madaxweynaha cusub isbeddelka ka dhacay Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka
madaxweynihii hore oo tegey oo sii sagootiyey taliyaha gaashaandhigga ee puntland saciid dheere anigu intaasaan ku tahniidaynaya una mahadsantiin iminka halkan waxaa ila taagan liibaan boqor muuse liibaan ku soo dhowow telefishinka caalamiga ee royal waa dhowahay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ku soo dhowow ayaan leeyahay ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamankaba waxaan kaleeto oo aan u mahad celinayaa maamulkii hore ee cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole iyo ku-xigeennadiisa iyo guddoomiyihii hore ee baarlamanka dhammaan waxay soo qabteen hawl fiican yacnii aad iyo aad baanuna ugu hambalyaynaynaa anoo ibraahim ah oo ka soo jeeda gobolka sanaag waxaan u arkaa doorashadii ka dhacday magaalada garowe bishii janawari 8-deedii oo lagu doortay brofesor cabdilweli maxamed cali gaas waxaan u arkaa guul u soo hayatay reer puntland guul u soo hayatay soomaaliya guul u soo hayatay geeska afrika waayo waxaanu u baahnayn madaxweyne cabdilweli oo kale la qiimaa oo shahaadadiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa wata marka waxaanu leenahay hambalyo reer puntland aad iyo aad baan u hambalyaynaya madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka odayaasha dhaqanka puntland iyo ciidamada iyo saraakiisha ciidamada waa mahadsantihin daawadayaal iminka halkan waxay la taagan dhallinyaro ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkaasi suuriya caawa halkan ku soo bandhigay wacdaro cajiiba iminka halkan waxay la taagan faadi تفضل تلفزيون الصومالي الرويال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحيي الصومال وشعبه وعلى رأسهم الرئيس عبد الوالي محمد كاز رئيس بولاية بوتلاند والشعب الصومالي ونحن أبناء الجالية السورية في الإمارات العربية المتحدة نهدي أحر التهاني من الشعب السوري إلى الشعب الصومالي ونقول بالتوفيق وألف مبروك إن شاء الله. داود يا لمك هالك وحيلة تاجن سيرار oo ka tirsanaa qabaqaabayaashii xafladan sida weyn loo soo agaasimay Serar ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Royal waa dhawahay akhi Axmed awalan waxaan salaamayaa TV-gaas Royal TV in shaqaalihiisa waa mahadsantihiin saad nooga qayb qaadateen farxadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan salaamo madaxweynaha cusub ee Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo runtii aynu oran karno wuxuu noqday ninkaasi haliyay Soomaaliyeed awalna ahaa qaabka sharafta leh oo uu aqbalay natiijadii looga guuleystay shacabka reer Puntland waxa ugu baaqayaa khaas ahaan nafsadayda markaan ka hadlo inay nabadooda ilaashadaan waxay sameeyeen wax wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed uga dayan karto amnigoodana ay adkaystaan dawladda cusub iyo tii hore waa isku mid baan leeyahay midnimada Puntland waa muqadas ayaan leeyahay abshir axmed carab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamaya ugu horreyn TV-ga caalamiga Royal TV waxaan aad uga hambalyaynayaa isbeddelka cusub madaxweynaha cusub Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdixakiin Cabdullaahi Camay dhammaan ummadda reer Puntland ma hadleenaya iyo madaxweynihii hore Faroole magacay waa Maxamed Faarax Cartan Maxamed Faarax Dheere waxaan hambalyeynaa madaxweynaha cusub Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cumar Camay iyo guddoonka baarlamaanka Saciid Xasan Shire waxaan sidoo kale hambalyeynaa madaxweyne xilli ka degay iyo xukuumaddiisa iyo ku-xigeenkiisa Cabdisamed Cali Shire iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxaan hambalyeynaa shacabka reer Puntland shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo insha Allah anigoo magacayga la yiraahdo Maxamed Cabdi Sahal waxaan aad ugu faraxsanahay isbeddelka ka dhacay Puntland ee lagu doortay mudane Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa ra'iisul baarlamaanka dhammaan waxaan aad ugu faraxsanahay inta meesha joogta iyo inta na maqlaysa iyo dhammaan reer Puntland oo dhan iyo inta taageerto oo dhan isbeddel ka dhacay doorashadii ka dhacday Puntland waxaana leenahay waa mid ku dayasho ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu rajaynaynaa inay ku daydaan oo talaabada mid ay qaadaan waa dhammaantiin daawadayaal saad u arkaysaanba halkan waxay la taagan Shukri Cumar Biixi Shukri saad u aragtaa isbeddelkan maanta baaxadda leh ee ka dhacay dowlad goboleedka Puntland oo helay madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas
هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلامة يا أمة الصوماليات كارهان أمة بونتلان وحنو أركي عاو ماشان معنا فرحة آدي وين أنا قوهم باليانية مدحوينها بونتلان عبد الولي محمد كاس يا عبد الحكيم عمي مدحوينك وحجين كيسة يا قدوميها برلمانك يا كحجين كذا دمان أمة الصوماليات مدحوينها فرولنا وحن لها سيد الشرفت له عاد حكمك كل يبته عاد بعض أقوم هتصنتهاي waxaana tahay labadeena garab wadayaal saad u arkaysaan halkan waxa ila taagan imika xaawo saad u aragtaa isbedel ka dhacay dowlad goboleedka Puntland oo kursiga madaxtinimada uu helay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ra'yigaaga adiga wax ma noo sheegi karaysaa waxaan u arkaa ra'yigayga actually waa arin aan qabo inay wax weyn soo kordhin doonto inkasta oo kii ka horeeyayba waxyaalo tiro badan uu qabtay uuna la kulmay dhibaato kan ee ku dhacda Puntland tii ugu badnayd uu la kulmay oo waxyaalo badan oo uu qaban lahaa uu uga habsaamay xataa dhibaatadii qabsatay oo aan madaxdii ka horeysay qabsan oo weerarka iyo dhibaatada iyo buuraha ragga galay iyo dhibaatada ku dhacday aysan raggii asaga ka horeeyay ku dhicin kaasna waan u hambalyeynaya hawshu qabtay kana waxaan qabaa in Puntland maanta ilaahay baa mahad leh horta sideeda reer Puntland oo adduunka meelaad joogtaanba waxaad tihiin ummadda ugu nasiibka badan aad baad u ayaan badan tihiin sharafka ay u dhacday doorashadiina sida maaragta nidaamka iyo maaragta xushmadu ku jidho oo sharafta badan oo ay ula kala wareegaan qolo walba oo meesha mid walba meesha soo mara uu kan kale ugu wareejiyo sida maarta quruxda badan oo adduunka kale uusan heli karin horta Puntland oo hadaad is ogtiin iyo hadii kaleba ilaahay baaba idin taageeray idinka daawadayaal imika halkan waxay la taagan Raaga Yaasiin Raaga saad u aragtaa adu isbedel ka dhacay dowlad goboleedka Puntland ما شاء الله waxaan arkaa wax fiican baan arkaa dowlad goboleedka uu hogaaminaya hadda Cabdiwali Maxamed Cali Gaas markii horena uu hogaaminayay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ما شاء الله si u dhacay si qurux badan bay ahayd caalamka iyo international community aad iyo aad bay u arkayeen ما شاء الله si fiican buu u dhacday waan u hambalyeynay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey waa soo dhaweynaa doorashada dhacday caawan halkan waxaan u nimid hambalyan caawa halkan u nimid aad iyo aad baan u soo dhaweynaya adigu Axmed Saliina waa ku salaamaya ما شاء الله magacaygu Maxamed Faarax aniga ku hadlaya magaca qurba joogta Puntland waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Cabdiwali Cali Gaas iyo madaxweynihii hore oo xilka sida habboon u wareejiyay Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladda quruxda badan ee loo dhigay caawada looga dhigay magaalada Dubai magacaygu waxa la Maxamuud Cumar Maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan tahniyadii u dirayaa laabtii kaliya laaba madaxweynaha cusub ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas waxaan kaloo tahniyad u dirayaa sagootina Cabdiraxmaan Faroole waxaan iyo shacabka reer Puntland oo dhanba magacaygu waa Cali Kidfaar waxaan tahniyad u dirayaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Cali Gaas waxaan kaloo tahniyad u dirayaa madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbedelkan cusub ee bilowday 8 anayo maxay tahay waxaana aad iyo aad u soo dhaweynaynaa maadaama nahay qurba joogta imaaraadka Cabdiwali Cali Gaas waxa la Axmed Ismaaciil Maxamed waxaan ahay qurba joogta jamhuriyadda reer Puntland imaaraadka waxaan aad ugu hambalyeeynaa dawladda cusub Cabdiraxmaan dawladda cusub Gaas iyo xukuumaddii horeeto oo tagtay aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan leeyahay guul ilaahay ha la qabto waa xilka mas'uuliyadda weyn ay qaadeen insha Allah waxa leeyahay guul ugaas Maxamuud ugaas Cabdi waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas anoo tahniyad kale u diraya Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole waxaan leenahay hambalyo Puntland daawayaal imika halkan waxa ila taagan fanaanad aad iyo aad qaali u ah caawa hees cajiiba oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadka qiiro gelisay halkan ka qaaday deeqa holan ku soo dhawo telefishinka caalamiga ee Royal ahlan wasahlan Axmed aad baan ku salaamayaa dhammaan shaqaalaha TV Royal meel kasta joogaan wada salaamaya caawa adoon i wareysan ma xisaabi karo how I'm happy tonight so Puntland madaxweyne Gaas waxaan leenahay awguriyo soo dhawow gacmo furan Faroolana waxaan leenahay sidoo kale
gacmo furan soo dhawow adiguna aad bay u mahadsan yihiin thank you axmed ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee royal السلام عليكم مركو هوري آد يا آد بان عاوة وفرح سنة فرحة آن لكوبي كرين رنتي أهنا بطلان يو معناها دور الشدة كرد عضي وفي آد يا آد وناكسن رنتي نعاوة آد فرحة دي لمسو كوبي كرو دمان شعب كبطلان يو مدى الصوماليات بواوهم بليانيا رنتينا مدحوينة عبد الولي علي قاس ومدحوينها رنتا وهقامين كرا بطلان يو شعب كذا با annaguna waa la wadaynaa insha Allah waana la gacan qabanaynaa daawadayaal saad u arkaysaan iminka halkan waxay ila taagan Saalax Cali Axmed Saalax saad u aragtaa isbedel ka dhacay dowlad goboleedka Puntland adiga ka Saalax ahaan wallahi horta ilaahay baa mahad iska leh fillahi alxamdu wal man waxaanu aragnaa isbedel taariikhi oo aad u qiimo badan waxaanu leenahay waa guul u soo hooyatay bulshada reer Puntland waxaanu leenahay waa wax ku dayasho mudan madaxweyne cabdiraxmaan farole waan aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan u hambaliyeynaynaa odayaashii iyo isimadii iyo dadkii aad uga soo shaqeeyay arrintan kuna guulaystay ilaahayna la qabto ka mira dhaliyey falilaahi alxamdu walman waxaanaan aad u ilaaweyn khudbaddii madaxweyne farole oo meeshaan kasii ku wareejiyey xilka oo ahayd khudbad taariikhi ah oo aan la hilmaami doonin dadka reer puntland ayna hilmaami doonin madaxweyne cabdiweli brofesor cabdiweli cali gaasna waxaan leenahay cabdiweli waad ku guulaysatay puntland oo aad ahayd nin maartay matali kara saa hore noogu sheegtay hadda waxaan u baahannahay inaad waxqabad dhab ah muujiso ee aanu ahayn hadalkaagii hadal loo biyo oo aad ku tiigsanaysay xilka waxaan u baahanahay inaad noqoto madaxweyne lala xisaabtami kara una furan buliyada rayadka iyo dadka wax ikhtiraaci kara ee keeni kara macnayaasha dalku uga hormari karo falilaahi alxamdu walman aad baan u hambaleynayaa aad iyo aad baan u hambalyeynaya tiimka cusub wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal si aad u arkayseen xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay ayaa ka dhacday dalkan istaga imaaraadka carabta oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa oo ay ka dhacday dalkan istaga imaaraadka carabta magaalada Shaariqa hoteelka Ritson Blue intaanu dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa anigoo Axmed Saciid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu